gaadiidka yaryar ee fitiska loo yaqaano oo toddobaadkii la soo dhaafay ka cabanayay amar ka soo baxay wasaaradda gaadiidka oo sheegaya inaanay u kala gooshi karin magaalooyinka Soomaaliland iyagoo rakaab sida ayaa maanta laga mamnuucay inay hormaraan wadada halbowlaha ee hormarta aqalka madaxtooyada Soomaaliland iyo waliba wadada kale ee gadaasha ka marta madaxtooyada iyadoo ay marayaan dhammaan gaadiidka kale ee dadweynuhu waxa weeyaan imika ayaan soo maray anigoo ka imi area in Dumbuluq ayaan sidii wadadii aan ordarka ku socdo hormar madaxtooyada waa la iga celiyay waxa wax gaadiidkii oo dhan madaxa isku jiraan waxa weeyaan waana wadadii halbowlaha iyada la marayay waxa weeyaan sabab loo xilin anagu nalama sheegin imika waxaan ku sii jeedaa oo la iga soo celiyay inaan ku noqdo hadana Dumbuluq biriishkii hadana waxa la iga hor istaagay Faarax Omar marka waxa weeyaan way isku oodantay marka waxa weeyaan handaraab kila sheegay bay imku dhaca marka gaadiidka kala way marayaan dadweynuhu waxa la beegsanayaa waxa weeye fitiska iyo marka maxaa gaarka la idinku socodsaa wallahi waan garan lahayn waxaan gaarka nooga suntay waa kicin baan anigu u qabaa in ay kicin tahay Soomaal garan oo mashruuca naga la baarayada anigu garan mayno mara shidaalkii bariga laga baari jiro kala mara fitistar galay marka ma garanayna anagu wax naga la baarayo Soomaal garan waana kicin sideedii u taala iyo handaraab ma laga yaabaa inay la xiriidho cabashooyinkii iyo mudaharaadadii aad maalmihii la soo dhaafay muujinayseen ee ah in la diideena gobolada u baxdaan in arrinka ay la xiriidho ma laga yaabaa waxa weeyaan dhan wal oo kastaba waxa ku way qasab ha way saameyn bay ku leedahay waxaanay ugu leedahay markii magaaladiina nagala istaagay goboladiina aan bixin magaalada gudaheedina wadooyinkii nagala xidhay waxa weeyaan markaas ka baarki gareeyay gawaadhida ayay u dhigan tahay taasina dhibteeday leedahay oo waxa weeyaan markaan gawaadhida dhigno dhib baa bilaamaysa sidan la ku socon mayso imka hawlahan looda waxaan leenahay waxa laga bedelo arrimahan madaxtooyada horteedina lama mari karo baaba la yiri dabadeedina lama mari karo anagu maargagixisaan ma muwaadiniin ganacsataan aan ahayn oo tagsiilayaala halkani waa wadada halbowlaha ee hormarta aqalka madaxtooyada Soomaaliland waxa maraya gaadiidka kala duwan ee shacabka iyo waliba kuwa dawladda laakiin saaka waxa laga mamnuucay oo loo diiday inay hormaraan aqalka madaxtooyada iyo waliba alfaafka dambe ama wadada ka dambaysa madaxtooyada gaadiidka yaryar ee loo yaqaano fitiska kuwaas oo cabasho xoogan ka muujiyay wadooyinkaasi muhiimka ee loo diiday dawladda hadii ay fitistar nacday deegaanka ka joojiso iyana soo deginba saaka dhibaatada taagan waxa weeyaan madaxtooyada lama hormari kara la yiri gaarigan dacashuur baa laga qaadaa wadamarin baa laga qaadaa miduu maayarku macaaw soo rogay buu ka qaadaa subax walba hadana in loo yimaado taadi gaar iyo dhib gaar ah waa mashaakil weeyaan midda kale waxaan u dirayaa madaxdan soo rogtay go'aamadan aan loo bixi karin safarada daniyo gaarigan gabadhida kale waxba kama duwana gaarigan dad baa ku nool ummad baa masaarifsata ummad baa inta ku nool waxa leeyahay madaxweynaha arrintan wax ka qabo oo bal hawshan ummadan bal kala jihee taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland ahna afayeenka guud ee ciidamada Bilayska Faysal Xiis ayaan weydiiyay sababta gaadiidkan loogu diiday inay hormaraan aqalka madaxtooyada Soomaaliland sida la socoto wasiirka gaadiidka ayaa awaamir buu soo saaray awaamirtaasna waa khasab in la fuliyo sharcigan la fariyo la fuliyo shalay waa ogtiin oo ahayd inaan magaalada laga bixi karin inay rirsaayda qaadi karin waxa soo la soo saaray shalay waxa la sheegayaa in ay baawurtaasi ay balbax sharci darro sameeyeen waa sharci darro laba qof iyo wixii ka badan sharci wax isku raaci karaan xitaa baawurtaasi oo yaryar oo istaba socda oo mudaharaadaya waa ku xitaa waxa jiirsiin gaareen nin sarkaal booliska ah oo ciidan wata nabadgelyada ah xitaa baawurkooda baawur ku dhifteen cid u diiday inay wadada maraan ma jirto war meeshii la mara dawayna mara وين نبتقلي هذا عيد وده ودي ما شرته أنا شغال قبصنا أنا أوامرتي فلانة لكن واحد عمره أنا السيولي حلقة يعني مرن ما شرته لكن تلي هذي صوت تجان وعبشرة أي كقبان أي موتشيان أمريكا وزيرك هؤلاء جود مشاريع ضرع درين كذا موتشيان ورورته دلكو شرعي بوليه حير بوليه هاي ورلبقوا فيه كبدني وحبسك برا كلام تسوى دمبي شلكوا لك قبتين وعليهن قف حدود دوني إنه سفر شرعي وافجيو أنت قرار القرطان هو قد بيا وزيرك أنا ما جوده وزيرك أنا ما جوده وصو قرانيا وهاي وحسبيه بوليه لكن يلا أنا عندنا وجين ملكي باورتي صوهر ورواش شرع درو دلكو دولة بوليه شرعي بوليه دستور بوليه والله عندنا لو وحش ما قف كي دمبي قلا ولا قوانيا محكمة دا إعلانات أول دولة هي اللي جينيا marka imika wadada madaxtooyada ma amaanaha baa loogu diiday cid alla cid u diiday ma jirto
rasuulta saaka laga celinayo waa laga celinaya wax alla wixii baabuur waan ka celinayna waa anaga shaqadeedii laakiin wax amar aan ku haysto la ka celiya midna ma jirto waxaad haystaa nabadgelyada ciidamada nabadgelyada ee wasaaradda hawlaha guudna waxay cuskanaysaa ay leedahay gaadiidkeedu waxaan u joojinay sababtu waxa weeye shilalkii ugu badnaa iyaga ayaa sababa adiga ma ku anigu wasiirka gaadiidka aad baan u taageersanahay waa wasiirkaygii waana wax qabad fiican amarkaa uu soo jeedana waa mid xaqa sababtoo ah wareeya baabuur kastoo fijisay reer saa'id uu qaadaa galbeed buu baxaa shil buu galaa barbar buu baxaa shil buu galaa waxyaabihii looga joojiyey ayay qabaan baan kuri sharcigaa uu soo saaray dawladdu ay soo saartay waa in la fuliya waa in sidiisa loo fuliya anigu waana fulinayna baan kuri ciddii ka hortimaadana gacan biraa lagu qabanaya xasan galaydh wararka home cable magaalada hargeysa